بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم أما بعد كلمة وفقه الأجور رنهانتي موضوعا نوسو كوبيا سيابها كلا دوان qofka uu ajir u dhacsan karo laga yaabo qofku inuu is yiraahdo maanaaba shaqo kala qabtay aanan ahayn inaan ajir raadiyo laakiin ajirkii baa wuxuu u baahan yahay fiqhi iyo faham cumqi leh oo mool ah ee hoos u quusaya nusuusta si wax looga soo baxo kelimada iyadoo aanan aad u bahbaahinayn baan waxaan leeyahay 20 qodob baanu tirin doonaa insha Allah subhanahu wa ta'ala 20 ka ila tiriya lagana yaabay inay su'aalo idin kaga yimaadaan hori horaanba waxa aanu fahamsanaa marka ay taagan tahay xoolo adduunyo marka la kasbanayo ama qofka markuu business u raadinayo waxa jira techniques la maro wadooyin la maro habab kala duwan ee loo soo dhacsado dad fara badan bay shaqo u noqotay shahaadaad baa lagu qaataa rag iyo khubara ah baa lala tashtaa la taliyaal buu arrinkaasu leeyahay majaalka marka la taagan yahay laakiin huna markay taagantahay waxaad moodaa dadku ajirka waa la raadiyaa un kaliya waxaase baraarujin mudan waxa laga yaabaa qofna inuu daalo oo uu sanawaad ordo qofna inuu sahlan ku soo dhacsado tusaalaanta waxa idin kugu filan markuu nabiga sallallahu alayhi wasallam uu lahaa 80 iyo dhowr sano ka badan buu qaf amal sameeyay nina hal habeen buu amalkaasu ilaahay subhanahu wa ta'ala inta waafajiyay wuxuu ka khayr batay dhowr 80 sano amalka la qaban lahaa sida qofkii laylatul qadr ilaahay subhanahu wa ta'ala uu waafajiyo oo kale halka marka waxaad fahamtay wada dheer aad mari lahayd oo kugu qaadan lahayd maalmo iyo saacado iyo sanawaad baa si sahlan marka u mari karnaa tan ugu horeysa waxay tahay ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa agyaal intaynan qodobada tirinin ayaa waxa ugu horeeya ajirka ilaahay xaqiisa ahaaday degdeg buu u baahan yahay in loo degdego si lamida xoolaha adduunyo markay meel naga galaan oo inaan u fariisanayn oo habeenii maalin aan shaqaynayno oo qofku markuu full time uu ka baxo hadana part time raadinayo markuu meel wax dhigto hadana istithmar investment raadinayo si lamida sida ayaa la nooga baahan juhdiga inaan gelino walidaalika qofka isagu daaha ee luga jiida ee habac muujiya ilaahay agtiisa waxa kuma laha waxa dhacday iyadoo Umar ibn Khattab radiyallahu anhu ardaahu uu joogo xafiiskiisa oo haddaan saa u dhigno ayaa albaabka waxay soo tubay dad ay isugu jiraan kow الحارث بن هشام أبو سفيان بن حرب يسهل بن عمرو رجع سدح ذا مركا إتاجنتهاي قريش السوشيال ستارز كا ومضى ماشى الدجن وضد كارلو إيجو وفي آي بيس وحجرب تاجن بلال صهيب ضد كهوسلو إيجي جري oo lagu tiriyay inay yihiin low class ka markay taagan tahay bulshada inteeda kale albaabka la wada taagan yahay saf baa lagu jiraa waxa la dhowrayaa Umar ibn Khattab inuu yiraahdo soo gala markii waxa yimid muadhin Umar ibn Khattab oo ninka albaabka taagan wuxuu yiri soo gala waxa la hadlay Bilal iyo Suhayb iragii la midka ahaa isku class ka ahaayeen ama isku level ka ahaayeen saa markay dhacdo kadib barrigi meesha taagnaa ee isu arkay inay ahaayeen dadka kale inay ka sareeyaan ay u muuqatay inay iyagu mudnaanta leeyihiin in kow albaabka laga furo ba markiiba caro
نقلير ويحناقين حناق يعرى وجهه ذا أدي أدوغا موقته لكن سهيل بوحى عن عقل بضن وكم إذا جروب كحناقي سهيل بكجري ويرددو وحقيقة موقته بيقول إن عرض وجهنا كم موقته لكن وحيا هيد إن ذيك سعر تانو أيضا ذاتك كلا يعون الخطاب يدها الذي كصوت ضاهي الباب كمركب الذي كفوري واي إن الأركة عركة موجسان ما هم بي صوبت حيري باق إلهي بايمد الدينية دين كان يسوق يرو لا إله إلا الله ده اللي يجري أنت مركب يوم ديارك أهدو دقدقتي وبلال وصهيب وضدك الله هذين لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم وضدك كجديسين فرط الله هذين وروح محمد وكان هذه خير يكجري لهايين كوا نغما هر مرامبا شالت الله هذين صوما نمنكي أرضي الباب كأفر الدعوة النبي قرب كيسا استاغي مركي برايا الدينية قعنتا كل فتي كواس أيام ما أنت متيستي إن الباب كاللغا فرو إذن كان راقي إذن كان ديبو دعي إذن كان قضاهاي ما أرأيتي هوله كاله إذن كان دقي سمواي مركب فلا تقضبوا إلى على أنفسكم هل كان حلقة قاعدة مركب إلهي سبحانه وتعالى أوامر تسعيدة بيكبضنت بعدد أنفاسنا إنتاس أفر لا تنكا ساعدات إن صمره every second that counts إنتو الضونا هلا كذا وحاجر باق دينيد اللي نليه وحان سمايا dadku waxay isugu jiraan marka laba qaybood nin isagu ka lahay fabaayi'u nafsahu famu'tiquha nin isagu nafti suuq geeyay oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka biiciyay iyo mid isagu intuu fariisay famuhlikuha yad halaagay labadaas nabiga u qaybiyay sallallahu alayhi wasallam hadith waxa ku soo arooray la tasxiixiyay wa ilayka nas'a wa nahfid ducooyinka waad ku maqashaan wa ilayka nas'a wa nahfid macnaheedu waa maxay Ilaahay xaggaaga u soo xagliyeynaa Ilaahay adaan ku soo degdegaynaa خدمة دينية كجابين بين هل كان حلقة تمركة قف بقفك وكدق بدنها تراك كسارية أو هايوي وسارية ولي ولا قديم ولا صلاة دي ولا جار صانك وصوص عدا كم بالقبت هوشس بالقبت أنا فريسني إن مركي أجر كتاجن تهاي الله سبحانه وتعالى أكتيسة وليه بريوريتيجا أو منانتك كلا وكلية هل كان مركو حلقات واحد كذا قياس قاعدة بزنس كالدنيا مركا وجروه مشروع لفره اللي يراد يا انفستمنت سميسانه يا قلي marka la yiraahdo inta ugu horeyso 10ka ugu horeysa iska leh 10ka ugu horeysa iska leh 20ka ugu horeysa iska leh inta criteria markiiba la timaado laakiin in isagu markuu maqlay kadib hawshii oo isku daba dhacday gadaal ka yimaada cid ka dhageysanaysa markaa mal qodobka arar wuxuu u yahay kelmadda aan rabno in aan muujino bi in Ilaahay subhanahu wa ta'ala qodobka koowaad 20ka qodoba aan dul marayno waa mid koow ajirku shaqo u baahan yahay إن لا صار عسد أباهية لنا شقيسن شهوة كحراوة الليل سادرتد بقرآن كوحة المامية وترجون من الله ما لا يرجون إذن كهداتي المؤمنين وحدوها انقل تاغيسان وآد شنسانيسان وتفليسان إلى حقينا تكهلي دونتان وحي قالت أني كهلين هل كان مركب حلقة قاتي قفك إنو أباهية هاي إنو كدح أما دال أما ديدid أما شقو ama hawl iswadatay inuu marka la yimaado si ajirka u helo macnaha marka waxa laga qaatay dadka iyagu aanan muslimiinta ahayn ee iyagu daala ee shaqooyinka khayrka qabta ee meelaha dadka dhibaataysan ay joogaan oo tabaalaysan u gurmada logistikada maanta ka daba wada Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu yiraahdaa arrinkaas shardi buu wataa مثل الذين كفروا أعمالهم مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون على شيء مما كسبوا آيات waxay muujisay waxa doontid adigu qabo hadii wixii asaas ka ahaa oo amalku ka anba qaaday oo iimaanka haduusan meesha ku jiro Ilaahay agtiisa waxa kama qodobka koowaad qodobka labaad ee inaan fahamno u yahay ajirkan Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu bixinayo waa galad rabbi Ilaahay xaqi ka timi wax inaga aan mutaysanay ma أنا متيستا إلهي سبحانه وتعالى جنات كيسة تضبط سمو أرض اللميدة إيضو وحا يقرد عماله بأنا وقهي ما بني آدم إنك نغميدي أيام متيسنكرة جنات كاس ماشا قارية إهار كا لوسي في إيضو عماشا نوحي تاين وقنهي
إنسان ما أنتنا وتوسين هاي برينا ما توصنا إذن عملك وكتوصنا لهانا قلع بها كجرة مرة هدي سيدات هاي الدبا إنك ما متيسن سادرت النبي صلى الله عليه وسلم وحيري نين إذن كميده عمل أولي من الجنة كقلي مايو مركز وحيري ولا أنت يا رسول الله إنك بابا قرانيه أذيك الرسول كي إلهي حتى مساسا مركز وحيري إلا أن يتغمدني الله برحمته إنه إلهي أقول الله ذي سنة مويانا سيكا لكوه متيسن كر هل كان مركز وحا إيماني سؤال سويدين له أو قرآن كوحا كجرة ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون بما أسلفتم في الأيام الخالية وإنت وحا قصة أرور القرآن ما لك لدون جنة قلع عمل كأسميسين سببتي جنة قلع وحا دهرما ستين سببتي علماء مركو حيدين بعض ما يشا كجرتاي grammatically اللغة العربية الله معنى موجسة منا وواحد شقيستي وبدل لقوسية مثلا وحباد إسيسي بيهان قاضو وحباد إسيسي موبايل كان قاضو وعمل هذا ولتم كاسوا بدل أما إن أنكو إراهضو واللبضان وحن أنيو كسيني واحد يسيني سيسمد دقمانه لكن ما دام أنيو آد سود دا شود إيتي مد آد نوعا ما معيني بضي وحن اسكا قاضو وحا اللي نقو سيني وسببية بوله ابن القيم يعني بمعنى عملك كان أنو لن مد وضدو إنو حاري مويانه لكن هدي لي صلاة وتكذي هبل إي صلاة أي تكتي هبلو أيا جنة لغو قليا تاسو اسمد إقمان هدي النبي صلى الله عليه وسلم نولشي سؤال ليري حياة وجهاد ليري أو صلاة ليري وكوك متيسن وصلاة ربي وسلام عليه هل كاسوا معناها أنو باهنا إنا نفهمنا وكقاعدة أساسية قضبك كلاء سدحات بحوية عملك أجرك لغو متيستاي ومتك إلهي كلية قوني وبرحتران ومعناه ذو يهي genuine نس بالو به عملك إلهي بالو لجيدا ما الكلام معه يعني معنى ما سمينيسو هدي أنا ويرا هذا مثلا بزنس الدنيا قولان مالك وحكو درسان لها مالا كلام أدري يقول لي ورهوشن لعجها ماشن كسو هجاجي بالويري كونتاد أن أهين بعد قدرته دتك أرسو إلهي سبحانه وتعالى عماشان أنو لا إيمان إنه هل كونتا أفران أو إخلاص لقوم مقعبه ماشا مالا أنا هين هدي أي مرتو هذا أرساني عدة أدرت هذا أرساني هل كان مركه النبي صلى الله عليه وسلم حديث بوينو الشيغي وعجائب تسالم وعنقنا هاي أعماشا وقصر الرئيسة إيه جنة الله قال وحا وقصر القرآن ولا أقريه جهاد في سبيل الله علمي شرعي الله فافيو لباهيو صدقه ود إلهي لا لبحه مركبسو النبي يقول حنا يري يوم القيامة وحا لكيني دونا نينكي قاريقة أها مركاسا وحا لديه دونا هايه محاد هاي يا رب قرآن كان أقريه ويادو أقرسي هذه قدرتها ميا مركز أقرنيس وجيدة وحي هاي إن لقوا يرى هذا هبل وقاري وعد معه وقاري ما شاء الله دادتكم ويكو يرى هذا نار تقل والله وعياكي يسوق مجاهد كها ومحاد وصميس يا رب أنا وحي هاي وضد هذا إن مركز خير كأحارة ميا وجيدة وحي نين كان جيسي ومواقص دوي وأهليي وأبان دول أنت سدرادي صوما يقدر تايتل وهذا الشيء ويحي قراده لو تحيلان ولا تحي نار تقل waxa loo yeeray ninka caalimka maxaad u sameeyay ma yarabo waxa ay ahayd diinta inaa faafiyo ma caalim sana oo ma sha Allah in lagu yiraahdo Soomaalihin dadku way ku yiraahdeen naarta gal kii sadaqada la baxay loo yeeray markaas wuxuu leeyahay ya rab wadadadan ku bixi war maya ujeedada waxa ahayd gacan furna how generous in lagu yiraahdo intina dadku way ku yiraahdeen hadaba naarta gal wuxuu leeyahay ibn al-qayyim rahmatullahi alayhi bal u koor qalbi leeyahay afartan qof waxay naar ku mutaysteen acmaashi jannada lagu gali lahaa haduu waa amal masjidkii baan fadhiyaa masjid illa fariiso qofka uu ku jili xiraado salaad ay u dhiibto isagoo saafaraha uu rogrogaya ee tasbiixsanaya ee maantana quraan aqrinaya ayaa waxa laga yaabaa amalkaas uu wado wadadii naarta inuu u falo waa goorma maxaa marka waxa jira campus buu salaad jirta jiheeya jira qalbigu waxa la rabaa halka uu abaarayay direction baa jira ilaahay uu tilmaam halkaas ula jeesaa lagu yiri in yar haduu wacdo degrees right degrees left haduu bidix in yar u leexdo oo shilimaadkii haddaan misaal kaga dhigno koonta khaldan aad ku shibtid halka u raasal lagu dhigo saadada nabiga sallallahu alayhi wasallam waa loo yimid ya rasuul allah
ninba wadada ilaahay ku halgamay laakiin wuxuu rabaa isaga oo wadada ilaahay ku halgamay haddana xoogaa yar in yar illa sheego ma arag dadka inuu ka muuqdo oo maadaama uu yahay nin dadaalay xoogaa dadka in marka inuu nin VIP yahay oo halgamaa yahay xoogaa dadku inay sheegaan garaadihiisa iyo garbihiisa waxa ka muuqdaan markaas laysa lahu min al-ajri shay hamala waa lagu celi laysa lahu min al-ajri shay hamala waa lagu celi laysa lahu min al-ajri shay hamala saddex markuu yiri buuxuu nabiga sallallahu alayhi wasallam janna formula GF fadhida qaacida ina leh inna allaha la yaqbalu min al-amali illa ma kana khalisan liwajhihi أو إلا ما كان خالصا له وبتغي به وجهه إلهي ما قدومه ما أقبله ما ملعسده ما سودويه عملا إساق أبر احترنين إسلام كان وجهي قال له لا جيدين وقاعدة قدوم وحال رأى مركة عيدها عندك صالحين تفتش نيتك دي بقول الله فمان قبتي وجدد محيتي ما واحد يقول جيرو حقاير سليمات كان مساجد كدر صنايو جماعة أنصح حاضريو khayraadka la nagu yeerayo waxaan oo dhan ma dan yar baa ku jirta dan yar xogaa yar in yar haday ku jirto waxay dhan salaf hadi umma wali jaaris baa tastaarija isku day maxay la binaadamku inagoo dhan ba waxaan nagu rakiban afarta gees ee desires marba meel inoo hagay hawa naga buuxda hawadan halkaas inoo jeeynaysa tii reerka nagu jirta tii nafta nagu jirta tii dhuunta nagu jirta tii jaabka nagu jirta inta way nagu jirta waxa la rabaa markastaba nin marka gaari ka xeenayo oo kale markastoo steering-ku la leexdo markiiba wadada ku soo duu oo ku soo celi halka marka qodobka kale ee muhiimka ah qodobka kale afraad wuxuu yahay waxa la inaga rabaa amalka aan qabanayno sideedana waa la mid yani amalka aan qabanayno waa inay yaqiin jirto qodobka waa muhiim qodobkan aan tilmaamay afraad waa muhiim waa inay yaqiin jirto waa inaan hubo in ballanqaadkii ilaahay uu ii ballanqaaday hawshan ama jarkii inaan heli doono maaha business adduunya 50-50 maaha waa lagu gudbi karaa waa lagu fashilmi karaa maaha waa inaan hubo bimacnaa waa maxay certainty-ga ah inaan hubo inaan ajir heli doono waa waxa iga keeni kara inaan sida ay tahay u shaqeeyo maalan haddaan hubo waxa aan shaqaystay inaan ziyada ku helo ama nuqsaan inay soo gaari doonin markaan hubo qofka aan u shaqaynayo qof aamina inuu yahay joornaatiga inuu isdaba marin markaan hubo bal iska daay inay gacantiisa ku jirto meel la ii dhigo la yiri waatan koodayaashaas ama koodiskaas ku furo markii waxa aad dhamaysid marka la yiraahdo waa laga yaabaa inaad heshid marka la yiraahdo isku shaqo ma yihi waa waxa keenay marka dadkii saalixiinta ahaa markay hawl qabanayaan amalka ay qabanayaan mashaqada ay u marayaan uma muuqata waxa u muuqata ajirka marka ay sugayaan qiso nabiga nooga sheekay baa jir sallallahu alayhi wasallam saddex nin baa israacay waxdiikii muslimiinta taqaanaan qisada roob baa ku yimid waxay ku khasbadaan in meelun gabaasi u galaan ma jirin meel shelter noqon karta laakiin god yar bay galeen godkii markay galeen kadib dhagax weyn oo huge rock ah aad weyn baa soo dilaysmay kadibna baashii wuxuu isku afjaray godkii meesha ahaa wala bixi waayey طبعا dhagaxa lama qaadi karo in meesha ay ka baxaan haddii meesha ay ku jiraan hours and days waxay u badan tahay inayba ku dhintaan waxa la yidhi maanta waxa keliya ee inagina badbaadin kara waa inaan ilaahay la hortagno camal khaalisa maalinun isaga dartii u qaban waxaan rabaa qisadan marka laba qodob baan ka faa'iideynaa camalka khaalisnimadiisa waxaan kaloo ka faa'iideynaa mashaqada dadkan ay mareen mid kamid ah hadalka bilaabay wuxuu yidhi yaa rab gabar waxaa jirtay in adeertaya oo dadka aan ugu jeclaabiyo intaasoo jeer baan ku dulmeeraystay waa isku kay diiday buu yidhi laakiin ilaahay wuxuu qadaray inay abaar timid abaar usoo dhibaato gelisa inay aniga maciini bido oo ay ii timaado halkan marka ninka wuxuu helay gabadhii uu jeclaa oo shalay isu diidaysay ayuu maanta wuxuu ka helay meel bannaan maxay iyada u baahan u timid wuxuu yidhi waxaan isku dayay buu yidhi nin wax jecel baan ahaye
inaan wax ka raadiyo markii ay dhacday buu yidhi in aan hawshaydii fushado oo aan fariistay waxba ii harsanayn bay gabadh waxay ugu tiri buu yidhi laa tafud alkhaatima ila bixaq warnigu ilaahay ka baq bakaaradan ha soo hawaysan xaqeyd inaad martid mooyaan aniga nikaaxso laakiin zinadana waxaad wadid jooji ninkii wuxuu yidhi markiiba dibba u gortay ninkan arag qofuu jecel yahay oo gacanta ku hayo guri oo cid joogta ayaan jirno indoorisa oo qof arkaysa aanan jirin ilaa rabbi alcaalamiin jalla wacala iyadoo diyaaro ay isu diidi karin maxaa yeelay baahi baa haysa qofka markay baahi haysana xaaladeedu way ka duwan tahay waxaasoo dhan all these facilities iyada ay jiraan buu wuxuu yidhi yaa rab haddaan arrinkaa u sameeyey adiga dartaa ilaah maanta waxaan ku jirna naga fay in yarba bahalka durkay mid kale yidhi yaa rab nin baa ii shaqeeyey waxay ahayd joornaatigiisa inaan siiyo ma aanan siin uu iska tegey uu dhaqaaqay intii baan maalgelin ku sameeyey xoolihii baa batay oo aad iyo aad ilaahay subxaana wa tacaala u badiyey kadib mar dhan buu u yihin buri isagoo socda markaas waxaan idhi waxaanaad arkaysa mataqaan waxaan oo dhan ba adaa iskale uni wax igu jeesjeesin waxaan ma yeelan kara in yarun baa ka tegaya shilimaad yar miyaa intaan maya adaa iskale wixiisi uu dareersaday buu yidhi shilna igama tegin yaa rab anoo dafiri kara dhihi kara kuma arkin intaan ku kulan aniga adiga yaad la hadlaysaa anoo dhihi kara ayaan wixii oo dhan gacanta ugu shubay biiruu dhaqaaqa saddexaad baa hadlay wuxuu yidhi yaa rab laba waalid baa ii joogay buu yidhi ciyaal yarna waan dhalay nin hanti badan haystana ma ahayn maanan ahayn buu yidhi wuxuu yidhi waxaa dhici jirtay buu yidhi ama dhacday in ciyaalkii oo gaajaysan oo waxay cunaan u baahan inaan hordisiiyo labada waalidna way hurdaan buu yidhi markaasaan weelkii uu ku jiray caanaha ayaan la dul taaganahay buu yidhi ilaa ay ka soo toosaan kuwa yaryar oo gaajaysan oo waxaan hayar raba inay wax ka cabaan oo ka cunaan waan u diiday buu yidhi intaa waxaan u sameeyey adiga dartay yaa rab waxaanu ku jirnay naga feed dhagax waa fid saddexda nin marka ninna wuxuu arkayaa ciyaal yar oo isagu u dhalay oo ku ag ooyay oo gaajo ay hayso laga yaabaa gaajada inay u dhintaan laakiin wuxuu is yiri birrul waalideynka ka muhiimsan mashaqo maraya maxay nafsadiisa emotionlesskiisa buu wuxuu ku sameeyay surprising isaga waa isdaalinaya dib buu maraya caatifadiisu la dagaalamaya ciyaalka ma milicsan waalidku arkaya midna waa xoolo adduunyo yani nin baa wuxuu ku dhiibtay wuxuu kaaga tagay 2 pound hoo baad leedahay naga tag 2 pound bay ahayd laakiin ila dhahdi waxaan oo dhan oo hadda million iska noqday adaa iska lahaa nafta bixin kartaa ma sahlana waa inuu qofku noqdo qof iimaan mawciid ka kale isagu shahwadu ay gubayso maanta wuxuu doonay wuxuu ka fakiray dhan gacanta ugu jirtay inuu dhaho may ilaahay dartii baa uga tagay maxaa saddexdaa ruux aad moodaysaan inay ku bixiyeen waxa ku bixiyay hubaal ay hubaan waxaan haddii ilaahay dartii inay u sameeyaan in ilaahay subxaana wa tacaala badal uu siin doono intaasay hubaan waa sababta keentay inaan carafa markaan marayno qoraxdaas la istaago oo ciriiriga la galo oo musdalifa la maro oo jamaraadka la maro oo meel dadku dhimanaan iman maxaa loo sameynaa waxaas oo dhan waxaa loo sameynayaa ilaahay subxaana wa tacaala macuudka waxaan ka wadaa marka camalku hadduu yahay camal aad yani aad qabanaysid haddii aad hubtid waana muhiim qofku inuu iska dhaadhiciyo yaqiintaas ilaahay kuma dayacaya markaad leedahay dadaalka markuu la iman qofku la imanay biidin ilaahi subxaana wa tacaala waxaa kaloo iyadan la mida qodobka kale ee muhiimka ah ee shanaad ee aan u baahannahay in deep understanding inuu jiro inaan si daqiiqa u fahmno si ajir loo helaa acmaashu ciiddaasay ka badatay si aad ajir u dhacsatid waxaa lagaga baahay inaad ka fakertid camalba camalka uu ka ajir badanya maalan iskama gelaysid any kind of business oo mid faa'iidadiisu ay tahay 5 midna ay tahay 30% isbarbardhig ma laha acmaasha waxaa jira acmaal ajirkoodu cirka gaarsiisay iyo kuwa ajirkoodu iska yar waxaad marka raadisaa acmaasha ajirkoodu uu badan yahay shortcut kan ah oo daal badan aan ku soo gaareen saxaabada fahamka way lahaayeen nabiga loo imanay yaa rasuul allah ayu alislaami khayr islaamku tiradaasoo ka batay camal la qabto islaamka ka midi ka ugu khayr badan mid baa u imanay ayu salaati khayr salaad way badan tahay salaadda ugu khayr badan yaa rasuul ayu albirri khayr samafalku ballaaran yahay ka ugu khayr badan muxuu raadinay ninkan saxaabiga
أفضل خير مركو اللي محور رادينيا وحور رادينيا نعم إن أنتو كذا وخير إن صومنا وخير إن صدق ربحنا وخير لكن عمل الله الله قبنا كأو خير بدن مركز النبي يقول ليها وحاو خير بدن الصلاة على وقتها وحاو خير بدن إيمان بالله وحاو خير بدن النبي مركز هاجيا وطان هذا إير كلمة مركز في فريرنا عن لهاي مثلا يعني قفك إنه ليلة القدر جاء وأد وجود ذاله طبعا كأقدم بيسا هبين بيكون بيجي هاي وطبعا كابع عبادة كعميم والمسجد كابع أنه كبحين وفتح ساقات وفريسته وحلاقي هبينك إنه مسادفيه وهلاله هل كهبين إنه كخير بدني هاي أم وحب كخير بدن سيد إلهي من نص من القرآن 1000 سنة 1000 شهر وتنو آيات إلا ذا وسديتن إلى حسنة زيادة مركا هل كمركا عن كقاعدة عملكو وشورت كات كإنا تراديسيد وحنا كم تفقه سيد الدنيا ده مركا رادين إنه مركا لو باهين النبي صلى الله عليه وسلم بمال ما كم ده صحابته يحكوا كاليا قرآنك سدح دولار ما يكون أقرنيا يعني سدح مركا الله قيبي 1/3 القرآن كان يكون دولار أقرنيا كاليا ويسافر يستان كدب النبي يقول والله أحد أن تكون أقرب وسكتجي كدب بوحي النبي قساسه إنه يجري سورة الإخلاص أنتو أقرب وسكتجي إنه وانا صار نقول من دا وحي بقى كسود دقي أما يساعد تهاي أما مشغول هذا الله مركا لقالي كدب النبي صلى الله عليه وسلم كسر الله تمركا سيري إذا ما دهين ثلث القرآن بعد نكون أقرنيا هوا نكون أقري أو سيكون عادة تقول هو الله أحد وحيقول لي أنت بيلي سدح ضلال محل القرآن كو وحكى له سدح ثيمس أما سدح موضوع وقومه مثلا القرآن كو حكى له أسماء الله توحيد كأه الألوهية الربوبية والألوهية وأسماء الله وصفاته كو وحكى له أحكام شرعية legislations القرآن كو حكى له وكله أخبار بوكى له وعيدي أنت بسوي جرت القرآن مركز سدح الله قيبيه قيب كم إذا توبيك الله حريرة توحيدك أو أقسامتيسا كلا دوان سورة الإخلاص بلغها لي مركب معناها صوت الماء مركب ما محي النبي يقول حب بري قول الله أحد قفك أقرياي أجر كيس إنه سهلانين زينب بيقول كيري انتو يصبح ودن بيفدي ذي ورديسي انت وردي بيكون جرت مركب شيء النبي صلى الله عليه وسلم انتو بيقول حيلي عدو ما أنتو ودن بتفدي ذي ها أني كان أديك قضاشا وحاني ريبو يري أفر كلمات بانيري waxaad maanta daldalisay aqrinaysa afarta kelmadood baa ka awood badan buu nabiga sallallahu alayhi wasallam waxaan iriwi subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati inta baan iriwi soo celceliyo inta maanta adigu Zaynab aad fadhido waqtiga ilaa waqtiga saacadaha badan aad ku bixinaysa inta baan iri halka marka waxa laga qaatay goormaan gaari karaa ma to that level where aan ogaan karo camalka yar ee aan qabtay inuu ka fadli badan karo camalada tirada badan horta waa inaan diinta barto kadibna aan sida aan u raadinayo suuqa marka ay taaganto aan u raadinayo halka ay ugu bisishahay ama halka ay ugu ma aragtay dasamka ka tahay halka aan ka raadinayo iyadoo sharciga Ilaahay saas u baahan